magaca Eebbe yaan ku bilaabaynaa ee naxariis guud iyo mid gaaraba naxariista. Degiddii Qoryoweyn. Qoryoweyn waa ceel magaalada Caynaba geesta galbeed ka xiga oo hilaada 29 mayl u jira oo aan saas biyo badan u lahayn. Sayid Maxamedna halkaasaa ugu horraysay meel uu daraawiish asaaskeeda ka bilaabo, dariiqada saalixiyana ka fidiyo. 1898 ayaa Sayid Maxamed ceelka Qoryoweyn hooso ama waab lagu tukado, kutubtana lagu raacdo ka dhisay. Muddo gaaban kadibna wuxuu u rogay masaajid weyn, wuxuuna dadka ugu baaqay in diinta la barto, dariiqada saalixiyana la galo, xoolahana siyaaro laga bixiyo, daraawiishna la noqdo. Wuxuuna bilaabay dicaayad iyo wax ka sheegid gaalada ka horjeeda si dadku u garto ugana digtoonaado gumaysiga iyo waxyeellada uu leeyahay. Muddo gaaban dhexdeed dad fara badan baa u riyaaqay dariiqada saalixiya, magaca darwiish la yidhaahdana waa hirgalay, dadkiina wuxuu siiyey duub cad iyo tusbax kuug ah. dikrigii dariiqada saalixiya iyo tawasulkii Sheekh Maxamed Saalax astaanta u ahaa baa halqabsi u noqday. taasina waxay dhalisay inay meeshii xarun noqoto oo culimo iyo caamo nin weliba yimaado isagoo reerkiisii wata, diintana baranaya. markuu reer baadiyaha dhex tegay wuxuu ku dadaalay inuu xumaantii dadka ku kala dhex jirtay ka saaro oo heshiis iyo walaalnimo dhex dhigo. taasna aad baa loogu jeclaystay, waxaaba la yidhi waa weli Ilaah ummadda u soo diray. Sayid Maxamed wuxuu gaar ahaan u muujiyey baahida uu qabo hub iyo fardo inuu helo, wuxuuna dadka ku waaniyey ninkii diinta daacad u ahow ama janno doonayow, buntuqaaga iyo faraskaaga dariiqada keen. xeeladda labaad oo la yaabka leh oo uu ku kacayna waxay ahayd ninba ninkuu ka waxtar roona ayuu si wanaagsan u soo dhoweeyey oo gacanta qabsaday. 1899 waxaa dhacday arrin sheeka lala yaabo leh. waxaa la yidhi dhowr nin oo ilaalo ah oo ciidamada Ingiriiska ka tirsan ayaa Sayid Maxamed u tegey. nimankaas lama oga in Ingiriisku soo diray iyo in kale. markuu sooray aadna u maamuusay ayuu ku yidhi, dabkaad sidataan gaal baa leh ee maa daraawiishta kaalmo u siisaan ama naga iibsataan. dabadeedna nin raggaa ka mid ahaa oo la odhan jiray Ducaale Xirsi ayaa hadalkii u guuxay oo buntuqiisii 4 geel ah Sayid Maxamed ka siistay. ragga taariikhda qora qaarkood waxay yidhaahdeen markuu ninkaasu ka xog warramay wuxuu war ku bixiyey in buntuqii Sayid Maxamed ka xaday. hase ahaatee daraawiishii waxay tidhi sidaa ma ahayn. ninkaasi xog warrankiisii wuxuu ku yidhi buntuqii Sayid Maxamed baa iga xoogay. si kastaba arrintuu ha ahaato ama ha u hele, waxa hubaal ah in buntuqii sayidka gacantiisa galay. sida runta ah hubka ay daraawiishi ku dagaal gashay badankiisa waxay ka furteen ciidankii Ingiriiska, gaar ahaan labada goobood oo kala ahaa Beerdhiga iyo Cagaarweyne. buntuqaasina wuxuu ahaa kii ugu horreeyey ee gacantiisa gala marka loo eego hubka ay furteen. ninkii magaalada Berbere Ingiriiska u fadhiyey waraaq erayo kululi ku qoran yihiin oo uu buntuqa ku doonayo buu sayidka u soo diray. sayidkuna wuxuu ugu warceliyey waraaq la mid ah oo uu buntuqii ku diidayo. labadii waraaqood waa kuwa kan. حرر في بربره 29 مارس 1899 19 ذي القعدة 1316 من حاكم بربره إلى الحج محمد عدلا. بعد السلام، بلغنا أن واحد رجل يدعى دعاله حرسي من أصحاب القبطان كوكس هرب ببندق كان سرقه، وإن الرجل المذكور أتى بالبندق إليكم، فنحرر هذا الكتاب منا، فنحبكم أنه إذا كان هذا البندق لديكم يلزم إرساله حالا إلى بربره. والسلام. كورد والصاحب بربره. warqad Ingiriisku Sayid Maxamed u diray. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا رجل، ما سرقت منك شيئا ولا من غيرك، اجري مرادك ممن سرقك واخدم من اخترت. والسلام. bishii Julaay 1899 sayidku waraaq buu u diray degmada Ciidagale isagoo ku leh, sow ma aragtaan inay gaaladii baabi'iyeen diinteennii oo carruurteennii ay ka dhigeen carruurtoodii. sayidku isagoo doonaya inuu sameeyo kacaan diiniya garna u leh 4 sano oo ka bilaabata 1895 ilaa 1899 ayuu ku howlanaa, inkastoo aanu guul weyn ka gaarin.
sayidku markii hore siyaasaddiisa wuxuu ka bilaabay dhinaca diinta wuxuuna ku kacay inuu masiixiga iyo maxamediyada isku diro sida runta ah, taasna guul buu ka gaaray. waana arrinta qur ah oo uu dadka ku kiciyey ama lagu raacay. waagaas waxaa jirtay haddii waraaq daraawiish ka timi la helo, badanaaba Ingiriiska ayaa loo gudbin jiray si kalsooni iyo xoolaba looga helo. sida laga xigtay xog warran uu u qoray qunsulkii guud ee markaa dalka Soomaaliya Ingiriiska u fadhiyey taliyaha guud ee cadmeed oo shaqadiisu ku xirnayd. muddo kadib ayaa waraaqdaas loo geeyey qunsulkii guud, kadibna faalla dheer buu ka bixiyey, wuxuuse aad ugu dheeraaday mishinkii Berbera fadhiyey. dabadeed waraaqduu diray 20kii Agoosto 1899 oo weliba siyaasad qarsoon lagu diray. waa tan: To Her Majesty Principal Secretary of State for Foreign Affairs, London. Hargeisa, the 20th of August, 1899. Number 69. Political, confidential 3 My Lord. I have the honor to enclose translation of a letter from the Mullah Muhammad Abdullah to the Idagala, as a specimen of the manner in which he has been trying to seduce the tribes from their allegiance to us. Although this letter has only now come into my hands, there is reason to believe that it reached Sultan Diria of the Idagala some 2 months ago, for the Sheikh Madha tells me that about that time Sultan Diria sent a message to him saying that he had heard from the mullah and asking his advice as to whether he should join him or not. The allusion to making our children their children evidently refers to the Roman Catholic mission at Berbera, about which it is known that Sultan Nur sent and took false reports to the mullah, probably with the view of ingratiating himself with him. I may here explain that the mission consists of 3 members, 2 fathers and 1 brother minus 69 boys. The mission has been established for many years in Berbera, and though it was looked upon with suspicion at first, that feeling has worn off and the people are now well accustomed to the presence of the fathers, and pay little attention to their educational proceedings. No boy can be received into the mission without the consent of a near relation, who is to sign a paper in the presence of the vice-consul that he leaves the boy of his own free will and that he will not withdraw him before a certain age, which is generally fixed at 18. As a rule, the boys are brought to the mission by their parents to save the latter the expense of keeping them. The fathers take great pains with the education of the boys, but they have not been altogether fortunate in those they have turned out, and in the case of the few converts they have made these revert to their people. As medical missionaries, the fathers have done a great deal of good in dispensing medicines and healing the sick in the town, and this is appreciated by the town people. Attached to the mission, but in a separate building, are a Lady Superior and 2 sisters. They never have more than 3 or 4 small girls from the wife and trays of the town, who stayed but a short time with them. The institution is a failure, the sisters are generally ill, and I have more than once suggested to the fathers the impropriety of subjecting the sisters to the deleterious effects of residence for consecutive hot weathers on the coast for such poor results. It is the hope of the mission that they may be allowed to move on to the upland of the Protectorate. Such a question, they have been told, cannot be considered for some years to come. I do not consider that the presence of this mission in Berbera has had anything to do with the movement that originated in the Dolbahanta, though it is doubtless a useful lever with which to try and raise disaffection amongst our Mohammedan tribes. I showed the letter to which allusion has been made above to Sheikh Madha, the head of the religious community here, and he at once said why, it is the writer who is destroying our religion. I have very little to report regarding the mullah. He is still in the neighborhood of Bohotil, but rumors are current that he is shortly making a move towards Burao. On the other hand, the sections of the Eastern Habru Yunus, who have all along been reported to be with him, have now written in asking to be allowed to go to Berbera. They have been told to send their headmen to Berbera, where they will be told the conditions on which they will be permitted to bring in their caravans. I propose to allow these people to trade as usual with our ports, as it is my object to detach them quietly from the mullah, but in order to have a hold over them after the caravan season is over, I shall take a cash security from each section before it is permitted to bring its caravans. Habru Yunus tribes, where I shall be in close touch with Berbera and better able to sift the reports from the eastern districts than I am here.
I have the honor to be your lordship's most obedient humble servant H.B.M., Consul General Somali Coast Protectorate. A copy of this dispatch is being sent to Cairo. warqaddaas waxaa af Soomaali loogu tarjumi karaa sida soo socoto. ku xoghayaha guud ee boqoradda ee arrimaha dibadda, London. lam 69 Hargeysa 2 Agost 1899 Sir qarsoon. Mudanahaygii, waxaa sharaf ii ah inaan halkan kuugu soo lifaaqo tarjamada warqad wadaadka Maxamed Cabdulle uu u diray ciidagale, gaar ahaan sida uu isugu dayay inuu u beerlaxawsado oo ka gooyo daacadda ay noo yihiin. iyadoo warqaddan ay haatan i soo gaartay, waxaa la malayn karaa in suldaanka ciidagale oo ah suldaan diiriye uu helay warqaddaas muddo laga joogo 2 bilood, maxaa yeelay shiikha wuxuu iigu sheegay warqaddiisa uu ka helay farriin wadaadka uu ku weydiisanayo inuu kala taliyo hadduu ku soo biiri lahaa dariiqada iyo haddii kale. marka uu leeyahay carruurtayadii ayay carruurtoodii ka dhigayaan, wuxuu ula jeedaa kiniisadda masiixiga ah ee ku taal Berbera, taasoo la ogsoon yahay in suldaan nuur warar been ah wadaadka ka siiyey. lagama yaabo inuu naftigiisu damacsan yahay inuu wax la qabsado wadaadka. waxaan halkan kuugu tifaftiri karaa mishinku inuu ka kooban yahay 3 qofood, 2 baadari wadaad iyo 1 baadari ku-xigeen iyo 6-9 wiil. kiniisaddani waxay ka dhisnayd Berbera sanooyin fara badan, inkastoo markii hore aad looga tuhun qabay. haatan waxaad mooddaa dadku inuusan dan ka lahayn habka waxbaridooda. canugna looma oggola inuu mishinku qabto isagoo ayaan la socon wixii markaa ehel ugu dhow, iyadoo weliba qunsul ku-xigeenka hortiisa lagaga saxiixayo warqad uu ku caddaynayo inuusan ka saari doonin mishinka ilaa uu ka gaaro 18 sano. waxaa caado ahayd in wiilasha ay keenaan mishanka waalidkood si ay ugu fursadaan qarashka korintooda iyo waxbaridooda. baadiriyaashu dhibaato xoog leh ayay kala kulmeen waxbaridda carruurtaas, laakiin nasiib darradu waxay ahayd inta yar oo ay gaalaysiiyaan. marka ay reerahoodii dib ugu laabtaan ayay waxay ku noqdaan diintoodii Islaamka. marka aan ka eegno hawsha baadiriyaasha xagga caafimaadka, waxay qaybshaan daawooyin, waxay daweeyaan kuwa jiran ee magaalada, taasoo reer magaalku aad ugu qadariyo. waxaa mishinka la xidhiira oo gooni u deggan 3 gabdhood oo wadaadda ah, soorooyin oo midi madax tahay. weligood ma helin wax ka badan 3 ama 4 gabdhood oo yaryar ah oo aan waalid lahayn ama wax daba jooga, kuwaasoo ay ka soo kaxaystaan dariiqyada magaalada, waxayna la joogaan muddo gaaban. ku abuurista mishinka halkan waa lagu khasaaray. gabdhaha wadaadada ah inta badan waa bukaan. dhowr goor waxaan kula taliyey baadiriyaasha inay ka kaxeeyaan gabdhaha wadaadada ah hawadan xeebta oo aad u kulul, mar haddii natiijada ay soo saarayaan ayaan u dhigmin dhibaatada gaaraysa caafimaadkooda. mishinku wuxuu rajaynayaa in loo oggolaado inuu u guuro maxmiyadda gudaheeda oo uu ka fogaado xeebta. arrintaas waxaa horay loogu sheegay inaan sannadaha soo socota lagu tashan karin. aniga ilama aha joogista mishinka magaalada Berbera inay ku leedahay dhaqdhaqaaqa dhulbahantaha, inkastoo aan shaki ku jirin inay taasi ka caraysiinayso muslimiinta raaciyadda inoo ah. warqadda aan horay u soo sheegnay waxaan tusay Sheekh Madar oo madax u ah dariiqada halkan joogta, wuxuuna igu yidhi markiiba, maxaa dhacay? ninka warqaddan soo qoray ayaaba duminaya diintayadiiye. war fiican kama hayo wadaadka, laakiin war ku tiri kuteen ah wuxuu sheegayaa in dhowaan uu guuri doono xagga iyo Burco. midda kale, qolooyinkii reer bari ee habar Yoonis oo horay u raacsanaa wadaadka, haatan warqad bay soo qoreen oo ay ku weydiisanayaan in loo oggolaado inay tagaan magaalada Berbera. waxaa loo sheegay inay u soo diraan madaxdooda Berbera, halkaasoo loogu sheegi doono shuruudaha loogu oggolaanayo inay safarradooda soo gashaan magaalada. waxaan soo jeedinayaa in habar Yoonis loo oggolaado inay ka ganacsadaan dekedahayaga, ulajeeddadaydu ah inay ka soo go'aan wadaadka, ama aan gacanta ugu hayo marka uu xilliga safruhu dhammaado. jilib walba waxaan ka qaadayaa dammaanad lacageed inta aan loo oggolaan inay safarradooda kaxaystaan. berrito qalcaddayda waxaan u rari doonaa xagga iyo habar Yoonis galbeed, halkaasoo aan u dhowaanayo Berbera si aan si hagaagsan ugu kala saaro wararka ka imaanaya degmooyinka bari.
waxaa sharaf ii ah inaan ku ahaado mudane adeegahaagii daacadda ahaa qunsulka guud maxmiyadda xeebta Soomaaliyeed. Nuqul ka mid ah warqaddan waxaa loo diray Qaahira.